السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halkani waa telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV xaruntiisa koobaad ee uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. kuna soo dhawaada barnaamijkeeni wax ka baro waayaha nolosha. barnaamijkan oo toddobaadkiiba ka baxa TV-ga Bulsha TV. haddii aynu soo qaadano qodobka ugu horeeya ayaa waxa uu noqonayaa nin isagoo indhala markaasi ku xidha gurigiisa ilaa iyo masaajidka inta u dhaxaysa xadhig kadib waxa uu ku tagaa sidaasi masaajidka shanta salaadoodba. ninkani ayaa waxa uu yahay nin indhoolaa isla markaasina waxa uu xadhig ku xidhaa inta u dhaxaysa gurigiisa ilaa masjidka waxa uuna ku tukadaa shanta salaadoodba masaajidka. ninkani ayaa waxa uu noqday mucjiso rabbaani oo ka yaabisay dad fara badan. waxa uuna awood u leeyahay in uu tago meel kasta balse waxa uu noqday mid aan dhayalsanin waajibaadka salaada. waxa uuna aaminsan yahay xadiiskii rasuulka ee ahaa 7 kamida dadka ayaa waxa loo hadhinayaa maalinta aanu hadh jirin hadhka Ilaahay mooyaane. markaasi 7daasi oo ay kamid ahaayeen nin qalbigiisu ku xidhan yahay masjidka. ninkani ayaa waxa uu tusaale u yahay dadka iyagu dhayalsada soo tukashada salaada ee jamaca balse waxa uu noqday nin ay markaasi dad badan ay ku dayan karaan. ninkani sidoo kale waxa uu leeyahay rajo nololeed oo aad u sareysa. waxa uuna yahay nin aan markaasi ka tegin cibaadada iyo salaada. salaadu waxa ay kamid tahay shanta tiir ee islaamka waxaanay diinteena kaga jirtaa meel aad u sareysa waxaanay mudan tahay in la ilaaliyo oo markaasi sida ay tahay loo dhowro. balse ninkani waxa uu tusaale u yahay qof kasta oo dhayalsada salaada iyo inuu ku soo tukado jamaca. waa tahay daawadayaal haddii aynu qodobkaasi intaasi kaga soo noqono ninkan aydun arkiiseen ayaa waxa uu yahay nin aan isagu markaasi cidi kaxaynin kuna soo tukada shanta salaadoodba jamaca iyo markaas isla markaana waxa uu yahay nin ka yaabiyay dadka oo dhan markaasi mucjisooyinka uu Ilaahay ku manaystay awgeed. haddii aynu soo qaadano xubinta labaad ee barnaamijkeena wax ka baro waayaha nolosha waa nin isticmaala baraha bulshada ay ku kulanto ee Facebook loo yaqaano. ninkani oo lagu magacaabo darmal maalin waxa uu isticmaalaa baraha bulshada ay ku kulanto ee Facebook waxaana uu isticmaalayay muddo 2 sanadood. waxa uu awood u leeyahay inuu Facebook uu wax soo dhigo isla markaasina waxa uu fudud inuu si fudud qof ugu darsado oo uu markaasi soo dhigo muuqaalo iyo qoraallo fara badan. ninkani ayaa waxa uu sheegay in uu waqtigii uu baranayay baraha bulshada ninkani ayaa waxa uu sheegay markii uu baranayay Facebook inuu kala kulmay dhibaatooyin aad u fara badan balse laakiin waxa uu suura gashay inuu sida dadka caadiga ah oo kale u isticmaalo. ninkani waxa uu markaasi uu baraha bulshada ka helay asxaab fara badan oo ku nool dalka dabadiisa iyo dalka gudihiisaba waxaanu isku mashquuliyaa waqtiyada uu jaaniska leeyahay si uu markaasi madandaalo uga dhigto. isagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yiri qofka araga la isticmaali kara social media jawaabtu waa haa sababtoo ah wuxuu la mid yahay qofka sida caadiga kale ayuu la mid yahay. maanta alxamdulillah waan horumarnay waxaan isticmaalnaa qalabyo kala duwan teknolojiya isticmaalnaa. telefonkan hadda inta badan u jeedaan waa touch screen. intaan shidin ka hor dadku waxay u maleynayaan in aanay isticmaali karin sidee ku isticmaalaa social media maado oo markii magaalada Nairobi markaan joogay wiilal oo araga la ugu dhiirigeliyeen in aan isticmaali karo Facebook iimaan aqoon qaabka loo isticmaalo laakiin juhdi badan aan sameeyay oo iyo tusaale aan sameeyay
computerka ku bartay computerka ku bartay waxa la baray hadana qaabka telefoonka loogu isticmaalo sidaas ayay ugu soo degaysaa bilowga meesha ka soo bilaabay maanta comment hadii wax walba la soo dhigo waan ka bixiyaa marka qaar video ana dhiga jiro marka qaar live Facebook ana u galaa jiro marka qaar waxa u isticmaalaa barnaamijyo waxyaalaha wanaaga ah oo isticmaalaa inta badan iyo waxyaalaha wanaaga ana ku soo dejisan karo laakiin ana hadaa wax isbaro inaan wax soo dejisan karo inaan wax download gareyn karo inaan wax diri karo inaan comment bixin karo inaan sawir soo dhigi karo waxyaalaha fara badan aan soo sameeyaa marka inta badan social media waxa suurtagal ah in qatay in dad fara badan aan maanta aan aqoonin in dunida ku kala barto ha ahaato barnaamij kale in ku barto cali aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aragga naafada ka waxa uu isaguna isticmaalaa baraha bulshadu ku kulanto ee Facebook-ga waxa uu kala xiriiraa ehelkiisa iyo asxaabtiisa waxa uuna ku talinayaa in ay dadka aragga naafada ka ahi isticmaalaan baraha bulshada si ay uga maarmaan caawimaada dadka kale isagoo hadalka arimahaasi ka hadlaya waxa uu cali ku bilaabay hadalkiisa marka waa xirfad ma sha Allah dadka indhoolayaasha runtii isku gudbiyaan runtii bariyaan dambana aad iyo aad maaragtay ugu muuqato Muqdisho iyo maaragtay dadka hada gobolada ugu dhadhow degan aan rajeynayo insha Allah mar dhow in qofta ay ka maarmi doonto waa qofta ayada is xureyso oo noqoto inay wax barato ku dadaasho in la caawiyo garanaysaa marka waxaan leeyahay qof kasto oo indhoole in ay isku tababarto in ay ka maaranto in la caawiyo maalin kasto in ayada noqoto qofta kaliya ee hawsheeda qabsanayso daawadayaal hadii aynu xubintaasi kaga soo noqono waa la yaab arimahani balse dad badan oo kamida bulshada ayaan waxaanay rumaysanaynin nimankan dhalinyarada ah ee isticmaalaya baraha bulshada balse laakiin qof waliba waa hankiisa iyo himiladiisa nololeed siday u sareyso isla markaasina waxa uu wax kastaba u awoodi karaa sida uu markaasi isagu iska dhigo hadii aynu soo qaadano qodobka saddexaad ee barnaamijkeena ayaa waxa uu noqonayaa dadka curyaamiinta ahi waa dad iyagu leh fikir aad u sareeya iyo hankooda oo aad u wanaagsan sidoo kale waxa ay leeyihiin niyad wanaag ninkani waxa uu ciyaaraa kubadda sidoo kale waxa uu awoodi karaa in uu kubadda ku ciyaaro fadhi sidoo kale waa nin rajadiisa nololeed aad u sareyso ninkani ayaa waxa uu markaasi taageeraa kooxda Arsenal isagoo qodobadaasi ka hadlayana waxa uu yiri wallahi kuma dhalan waa min Allah laakiin waa polio ama waa dabeel anigu jira 5 sano ayaan sidaa noqdo wallahi aniga inta badan waxaan jeclaa winger inaan noqdo macnaha waa garab oo kala inaan garab ku soo wartagaan jeclaa ka dhaxda ma ciyaaro mar inaan soo dego macquul laakiin sida professional kayga aan jeclaa waxaan jeclaa garabka inaan ka soo xaroodo wallahi migayga waa dheer laakiin waxaan jeclaa ilaa 40 sano inaan gaaro inaan kubadda cagta sii jiido wallahi jimkan waxa u galaa bis inaan la dagaalamo hilibkayga zaidka inuu soo ugu soo laabo waa tahay daawadayaal hadii intaasi kaga soo noqono xubintaasi ka hadlaysay ninka aad wada arkiiseen ee curyaanka haddana ciyaaraya kubadda ayaa waxa ay noqonaysaa arrin dhiirigelin oo ay dad badan ku dayan karaan oo ay markaasi wax ka fahmi karaan aynu soo qaadano daawadayaal xubinta ugu dambaysa ee barnaamijkeena wax ka baro waayaha nolosha waxa ay noqonaysaa sida ay u nool yihiin dadka aragga naafada ka ahi waxa ay leeyihiin hami iyo han aad u sareeya marka uu qofka indhoola ahi gurigiisa ka baxo waxa uu isku dayaa inuu socdo kadib waxa uu cabiraa juqraafi ahaan qaabka ay wadadu u samaysan tahay sidoo kale waxa uu awoodi karaa inuu ka joogo baabuurta inta ay dhaafayaan hadii aynu eegno dhanka waxbarashada iyo qaabka ay wax u bartaan dadka aragga naafada ka ahi ayaa waxa ay tahay qaab cajaa'ib ah waxa ay guula ka soo hoyiyaan guud ahaan imtixaanada laga qaado dadka ee ay la galaan ardayda sidoo kale waxa ay leeyihiin xifdi aad u wanaagsan waxaanay xifdi karaan cashar kasta oo markaasi loo dhigayo ama ay markaasi ay dhageysanayaan hadii aynu soo qaadano qaabka habdhaqankooda nololeed waa dad aad u furfuran oo aan ka dhex bixin marnaba bulshada sidoo kale waxa ay ka qayb qaataan horumarka ay bulshadu ku talaabsanayso sidoo kale waxa ay markaasi ay tusaale u noqon karaan dad fara badan iyaga oo markaasi
adeegsanaya quwadaha ama maskaxda uu Ilaahay siiyay dadkaasi ee uu ku manaystay. Dadka indhoolayaasha ahi waxa ay sidoo kale ay fahmi karaan qofku marka uu la hadlayo, waxaanay soo saari karaan codkiisa iyaga oo marka uu la hadlo garanayo qofkani qofka uu yahay. Sidoo kale marka ay si salaamaan waxa ay awoodi u leeyihiin inay gartaan qofkan. balse dadka indhoolayaasha ahi waxa ay u qaybsamaan kuwa markaasi iyagu awoodi kara inay ay socdaan iyo kuwa la kaxeeyo. sidoo kale waxa ay u qaybsamaan dad aragtida dhow ay ka maqan tahay iyo kuwa aragga fog uu ka maqan yahay, balse dhammaantood waxa ay ka midaysan yihiin inay garan karaan dadka oo ay kuna garan karaan codkiisa marka uu la hadlayo. sidoo kale qaar ka midi waxay leeyihiin awoodo dheeraada, waxaanay markaasi qofka ku garan karaan marka uu gacanta ku salaamo qofkani qofka uu yahay. waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wax ka baro waayaha nolosha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Siciid Cali. dhinaca editinka barnaamijka waxa aynu ugu howlanaa Axmed Weli Beeyo. dhinaca kamarada iyo sawir qaadistuna waa Sakriye Cabdi Bare. intaynu barnaamij lamida ku kulmi doono waa barbaarta Bulsho TV oo idinku dhaafaysa sidaas iyo nabadgelyo.